السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكينا maanta oo gaabnaan doona waxaan rabaa inaan ku soo koobo qarnigii 7aad maxaa ka dhacay qaaradan Afrika. Boqolka sanadood ee qarnigii 7aad qaarada Afrika waxyaalaha ka jiray waxaa kamid ah. Markaasi waxaa jiray boqorro awood badan oo ka taliya dhul ballaaran, gaar ahaan galbeedka Afrika. Boqortooyin fara badan oo ay kamid tahay boqortooyadii Ghana oo ahayd mid aad u awood badan oo dhaqaale badan heli doonta qaybta dambe ee qarnigan ayaa ka talisa. dhinaca bariga qaaradda Afrika oo dhulkan ah East Africa waxaa ka jira boqortooyada Xabashida ama dhulka Abyssinia. Boqor awood badan baa markaas halkaas jooga oo boqorkii Najashi baa halkaas jooga oo ilaa dhulka Eritrea isagana amarkiisa u gaadho. Isla waqtigani qaaradda Asia ama bariga dhexe ee dhulka Carabta waxaa ka soo dhashay awood aan la xaqiri karin. waa awoodii muslimiinta. Islaamka markaas dilaacay markii islaamku bilowday. markan muslimiintu ma awood badna. nabigana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dad fara badan oo rumeeyay ma jiraan. ciidanka muslimiintu ma awood badna. marka gaaladii Quraysheed ama dadkii Carbeed ee gaalada ahaa markaas sanamyada caabudi jiray culays iyo cadaadis badan ay saareen muslimiintii markaas diinta islaamka haystay. cadaadiskii muslimiinta ka haystay barigan dhexe ayaa wuxuu sababay in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dardaarmo ama u sheegay inay tagaan qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga Afrika oo ugu tilmaamay halkaas inuu joogo boqor cadaaliyoon agtiisa cidna lagu dhibaateyn. waa boqorka East Africa talniya ee Najashi ama boqortooyadii Aksum loo oran jiray ee Xabashida ilaa Eritrea awoodooda gaarsiisaneyd. muslimiintii Carbeed waxay ka soo talaabeen dhanka badda, waxayna sidaas markii ugu horeysay cagta ku soo dhigeen qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga Afrika. waxay yimaadeen halkii uu ka talinayay boqorkii Xabashida haystay markaasi ee boqorkii Najashi. muslimiinta waxa la siiyay maangeliyo halkaasina. waxyaalaha taariikhiga ay ka sameeyeen waxaa kamid ah in ay ka dhisan halkaan masaajidkii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika laga dhiso. masaajidkan wuxuu ku yaalaa magaalada Asawa oo ah dhanka xeebta. magaaladaasi iminka waqtigan waa wadanka Eritrea, laakiin markaasi boqorkaasi Xabashida ayaa ka talin jiray. masaajidkaasi waxyaalaha taariikhiga ee masaajidkaasi leeyahay waxaa kamid ah wuxuu leeyahay qibladii Baytul Maqdis ee u jeeday dhinaca Baytul Maqdis oo ahayd markaasi jihada dadka muslimiinta ah ay u tukan jireen intaan la eegin ama aan loo jihaysan dhanka magaalada Makka. bartamihii qarnigan 7aad muslimiinta awoodoodu way soo kordhay, ciidan badan bay samaysteen, laakiin meelaha ay diiradda ku soo eegeen oo inagana muuqaalkeena maanta uu daaran yahay waxaa kamid ah qaaradda Afrika. markan ganacsatadii Carbeed ee muslimiinta ahayd waxay awoodooda soo saareen dhanka qaaradda Afrika. dhinaca waqooyi ee qaaradda Afrika oo ah dhulka Morocco ilaa Masar, dhulkaas oo dhan oo ay degaan qabiilo asal ahaan dadka Carabta ah u dhow muuqaalkooda ama shaqligooda Carabta u egyahay ay degan yihiin ayay ka soo galeen markii ugu horeysay qaaradda Afrika. ganacsatadan Carbeed waxay keeneen diinta islaamka oo halkaasi markaasi ku fiday. waxyaalaha kale ay keeneen waxaa kamid ah dhaqankoodii. waxay keeneen ganacsiga ay soo kordhiyeen waa meesha ugu cajiibsan ee qarniga 7aad waxyaalaha qaaradda Afrika ka dhacay. waxay keeneen isticmaalka gaadiidka geela oo markii hore aan qaaradan laga isticmaali jirin. waxay la yimaadeen ganacsatada Carbeed geel awood badan, xoog badan, culays badan qaadi kara, waqti dheerna socon kara oo mari kara dhulka Saxaraha. ganacsatadan Carbeed dhinaca waqooyi waxay ka bilaabeen ganacsi cusub oo aad u awood badan. ganacsigaas waxay la yeelanayaan boqortooyooyinkii ka jiray galbeedka Afrika. boqortooyinkaasi waxay haystaan dhulkooda waxaa yaala macdan aan xad lahayn, dahab buuxa, sidoo kale fulki maroodiga yaala. wax ay aad ugu baahan yihiin ganacsatada Carbeed ee bariga dhexe iyo qaaradda Aasiya ka yimid ayaa halka galbeedka Afrika yaala. marka ganacsatadan Carbeed safarka ganacsiga ay ka baxayaan dhanka waqooyiga waxay sii rarayaan geelaasna tiradoodu waa 1,000 ilaa 10,000 oo neef oo geel oo aan noocaasi xoog badan la raranayaan. waxayna saarayaan milix ama cusbo, waxay saarayaan maryo la soo diyaariyay oo tolan oo dhanka bariga dhexe ay ka keeneen, waxay saarayaan bisbaas, waxay saarayaan qalab ka samaysan biro oo loo isticmaalo ama beeraha ama Allahumma salli ala Muhammad in dagaal ahaan loo isticmaalo qalabkaasina waxyaalaha rarayaan. sidoo kale fardo ayaa kamid ah safarkooda. 10,000 ee neef geela ayaa la marinayaa saxarahaas. maadaama saxaruhu ay adag tahay in la maro, waxay safrayaan ganacsatada bilaha qabowga oo ah bilaha 10aad ee sanadka ilaa bisha 3aad oo waqtiga aan kulaylaha badna jirin ay safarkooda bilaabayaan. safarkan ganacsatada Carbeed wuxuu soconayaa
ilaa 40 ilaa 60 maalmood iyo habeenadoodii. waa waqti 2 bilood gaaraya. waxayna sameynayaan qaacido ah inay isku beegaan bilaha tobnaad ilaa saddexaad ee sanadka oo ah xilliga qaboobaha ah. wada ahaana waxay isku beegayaan meelaha biyaha leh ama harooyinka ama jeexyada biyo ku jiraan. meel biyo leh isku beegayaan. markaas halkaasi ayay maalinta ku nagaanayaan, biyo kasii cabayaan, cuntadooda waxay ku samaysanayaan, safarkooda barsiska sii wadayaan maalin kasta ama istaag kasta oo istaagaan meel biyo leh ay isku beegayaan. haddii ay ka lumaan meelaha biyaha waxay la micno tahay in kumanaan qof ay dhexda ku dhiman doonaan maadaama dhulku aanu biyo lahayn, saxarana ay tahay. marka ay safarkaas 10,000 geela gaadhaya ay gaadhsiiyaan dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika, wixii ay wadeen muxuu ahaa? waxay wadeen maryo, milix ama cusbo, basbaas, biro, fardo. maxay kusoo bedelanayaan way su-aashu? ma waxay kusoo bedelanayaan wax waxooda u dhigma mise wax waxooda ka qaalisan? waa halkan meesha su-aasha u baahan. waxa ay kusoo bedelanayaan dahab, waxay kusoo bedelanayaan fuulka maroodiga oo qiimo aada u sarreeya joogo ilaa Aasiya qaybaheeda shishe loo dhoofiyo ilaa qaaradda Yurub oo lacag fara badan jooga. waxyaalaha ay la soo laaban doonaan ganacsatada waxaa ka mid ah dad nool oo addoommo ahaan ay usoo iibsan doonaan maadaama ay safarkaa keenaan. alaabaha ay soo qaadan doonaan waxaa ku jira dadkaasina waa xilligii boqortooyooyinkan galbeedka Afrika taliya ay dagaalada galaan. marka ay dagaalada galaan, boqortooyinka dhex maraya ciidamada ama maxaabiista ay kala qabsadaan oo boqortooyo kasta maxaabiista ay haysato hadhow alaab ayay kaga bedelanayaan ganacsatada Carbeed. oo dadkaasi addoommo ahaan baa loo soo kaxaysanaya, carabtana usoo kaxaysanayeen, dhinaca waqooyiga Afrika kula soo laabanayeen. waxay sameynayeen inay ku shaqeeyaan, beera ku falaan, shaqaalahaan u isticmaalaan, askar ka dhigaan. qaar kalena waxaa loo dhoofinayay ilaa qaaradda Asia bariga dhexe la gaadhsiinaya. halkaasina sidii la doono ayaa dee lagu adoonsanayay marka halkaasi gaadhaan. haddaba safarkan ganacsatada Carbeed iyo ciidamadii Carbeed ay ka dhex bilaabeen qaaradda Afrika ee waqooyiga ilaa galbeedka isku xidhaya ee xajmiga intaa la eg, bal qiyaas 10,000 oo neef oo geela, dahabka lagu soo rari karo ee lagula soo noqon karo waqooyiga qaaradda Afrika, intuu dahabkaas tiradiisu la egyahay, inta fool maroodi lasoo rari karo, inta dad si aan xisaab lahayn maxaabiis ahaan u haysteen boqortooyinkaasi ay carabtu la soo laabanayso markaasi addoomo ka dhiganayso. laakiin hal dhibaato ayaa qabsaday. maadaama dhibaatadu dhanka luqadda ka haysato, ayna ku khasban yihiin inay kala ganacsadaan oo qoladanina alaabtii ka keeneen waqooyiga Afrika ay qoladan ku wareejiyaan, qoladaasina alaabtii iyo macdantii, dahabkii iyo foolkii maroodiga iyo addoomihii iyo wixii ay iyaguna ku bedelanayaan alaabtaasi. si loo kala bedelan lahaa dhibaato noqotay. marka waxay keeneen qaacido afdhagool ama luqad dhagool ah laakiin ku salaysan in la is aamino. qaacidadan waxay u shaqeynaysaa sidan: ganacsatada Carbeed ee ka timi waqooyiga Afrika waxay imanayaan meel biyo ah oo sida haro ama webi ah oo la isla og yahay lagu ballamay. markay meeshaas yimaadaan, alaabtii iyo rarkii ay wadeen bay dhigayaan. dhammaan milixdii ama cusbadii, alaabihii, maryihii tolnaa, bisbaasyadii, qalabkii biraha ka samaysnaa, wixii ay wadeen oo dhan bay dhulka wadhayaan. marka ay dhulka wadhaan, durbaan bay tumayaan. durbaanka markay tumaan micnaheedu waxa weeyaan baaq loogu baaqayo dadkii kale ee ganacsatadii dhanka galbeedka Afrika. safarkii waa keenay bal macna tahay durbaankaasi. durbaanka marka ay tumaan, ganacsatada Carbeed way noqonayaan dhankii ay ka yimaadeen, jihadii waqooyi ay ka yimaadeen bay ku noqonayaan, dhinaca kaynta ayayna gelayaan. sidaas ayayna alaabtaas iyadoo dhulka wadhan kaga tegayaan. waxaa maqlaya durbaanka dhanka galbeedka Afrika boqortooyinkii joogay, ciidamadoodii ama shaqaalahoodii ama dadkii ganacsatada ahaa. markaasi waxay soo qaadayaan alaabtii, iyagoo alaabtii ay kaga bedelan lahaayeen wada ayay imanayaan meeshii. markay yimaadaan waxay eegayaan alaabta dhulka taalla. alaabta markay eegaan, haddii alaabta ku qancaan, waxay dhigayaan iyaguna wixii ay wadeen. gaar ahaan dahabka oo kale meelaha ay dhigi jireen waxaa ka mid ah milixda ama cusbada dhinaceeda inay dhigaan oo meel la yaqaanay ayaa jiray maadaama luqada aanay jirin. waxaa la isticmaalayaa luqad dhawlkaas la isticmaalaya. marka ay dhigaan alaabtii ay keeneen ee dahabkaha iyo wixii ay dhigaan, way iska laabanayaan. waxay ku laabanayaan kaynta dhinaca ay ka yimaadeen ee galbeed. marka ay laabtaan, ganacsatadii Carbeed ee kaynta ku jiray baa soo noqonaya. waxay imanayaan meeshii alaabtu taallay, alaabtii bay eegayaan loo soo dhigay. haddii alaabta ay ku qancaan, durbaankay tumayaan. waxay ka micno tahay ama ay ka dhigan tahay dealistan, heshiiskaasi waa uu dhacay, waana ku qancnay alaabta. sidaas ay alaabta ku raranayaan. markay durbaanka garaacaan, safarkooday gelayaan.
laakiin haddii ay ku qanci waayaan alaabta durbaanka ma tumayaan ee kayntii ay ku maqnaayeen ay hadda ka yimaadeen bay dib ugu laabanayaan iyagoo durbaan tumin. marka ganacsatada dhanka galbeedka Afrika jooga way maadaama heshiisku saa u shaqeynayo markay durbaanka waayaan way fahmayaan alaabtii la keenay in la salugay alaabtii ay geeyeen in ganacsatada carabtu salugtay way soo noqonayaan dahabkii ama foolkii maroodiga alaabtii ay meesha dhigeen bay kordhinayaan. marka ay kordhiyaan dhankoodii kaynta ku laabanayaan qoladii kala soo laabanaysa alaabtii baad ku qanacdo durbaanka markaas la tumaya. deal is done. heshiiskaasi waa uu dhacay. markii durbaanka la tumo ayay alaabtooda raranayaan meesha ay ka yimaadeen saxarihii wadadii dheer dib u qaadayaan. sidaasina kuwii galbeedka iyaguna markooda imanaya alaabtii meesha taalay ay iyaguna raranayaan. heshiiskani waa heshiis ku salaysan in la iskhiyaamayn oo haddii labada qolo mid kamid ay khiyaamo samayso heshiiska oo dhani waa uu burburaya. sidaasi ayayna ganacsatadii Carabeed ee dhanka waqooyiga ka timi ay ula laabanayaan ganacsigoodii iyo alaabahoodii oo ugu raran geeloodii xooga badnaa oo ay weheliyaan adoomihii ay soo kaxaysteen oo ku jireen alaabta markaas ay kusoo bedesheen. waa qarniga 7 inta aan qaaradda Yurub aysan ka iman gumeystayaashu oo dhowr boqol oo sanadood baaba ka dhiman markan dhowr boqol oo sano ka hor inta aysan iman gumeystayaasha reer Yurub. markani ganacsatadii Carabeed ayaa ka bilaabay qaaradda Afrika inay dadka Afrikaanka maxaabiista ahaa alaab ku bedeshaan sidaasi ahaana ay adoomo waqooyiga Afrika ilaa bariga dhexe qaaradda Aasiya ay u gudbiyaan. haddii aad ilaa halkan la soo gaadhay muuqaalkeena waxaan ka codsanayaa inaad channelkeena like saarto subscribe tirada si aad u hesho muuqaalada qaybaha dambe aan soo gelin doono ee taariikhda iyo dhacdooyinka. mahadsanid.